بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم. أصحابتا أخيارتا walalaha soomaalida meel kastaad joogtiin adduunkan oo videogan daawanaya. Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. waan leeyahay kusoo dhawaada channelkan coach Maryan. waxaan ilaahay ka baryaaya insha Allah bishaan ramadaanka aan ku jirno inay noqoto yani bishii ugu khayr badnaa, ramadaanka ugu khayr badnaa, ramadaanka ugu baraka badnaa oo weligeena abadkeena soo maray. yani sanawaadkii horaan ka hadlay laakiin kuwa soo socdana insha Allah kuwa ka sii khayr badan, kuwa ka sii baraka badan biidni Ilaahi tacaala. intaan videogan qasdigiisa usii gudbin waxaan rabaa inaa dhowr comment ah isoo gaartay oo ku saabsan coach Maryan maxaa adi videoyada oo yani si oo xiriir ah oo si oo yani isku daba xiga maxaa usoo daan weydaa. walaalahi qaaliga waa ku mahadsantiin insha Allah yani xiisadiina iyo motivationkiina iyo dhiirigelintiina biidnillah ilaahay haniga ajar mariyo. laakiin waxaan rabaa inaan la socodsiiyo aniga youtuber ma ihi, waxaan ahay yani macallimad iyo trainer oo community-gi iyo bulshadii ku dhex jirtaan ahay. channelkana qasdigiisa wuxuu ahaa inaa waxyaalaha ah bulshada markasta aan la wadaago ama waaye aragga ama experience-ka arko waxyaalaha inaa yani aan isdhaho yani arintan waxay u baahan tahay Soomaali meel kastaba inay ka warqabto, inay ka faa'iideysato. that's why aan u keenay channelkan inaa nila wadaago. laakiin insha Allah waa ku dadaalaya biidni Ilaahi tacaala videoyo oo muhiim ah rabo wali casharo badan aan jeclahay inaan nila wadaaga jirta inaa sida ugu fudud ama ugu dhaqso badan inaan nila wadaago. especially ramadaankan waxaa jirta mawaadiic badan aan jeclaan lahaa inaan ka hadlo, laakiin waxaa ii suurto gali weyday because shaqo hooyo caruur laha ahay marka way u adkaatay. laakiin waxaan sameyn doonaa biidni illah wax la dhaho podcast yani maqal keliya oo waxaa arki doontaan insha Allah videoyo badan oo soo socdo oo keliya maqal ah sidii anigana igu fududaato kaamirooyinkii iyo videoyaashii iyo waxyaasa iyo lightingkii iyo adinkana insha Allah faa'iidada dhaqsan soo gaarto biidni Ilaahi tacaala. faa'iido aad ka faa'iideysateen iyo mawaadiic muhiim aad ka faa'iideysateen inay noqoto biidni illah. saasa ballanoo ah ina ducaaya insha Allah inuu Ilaahay ii fududeeyo. haddaan usoo noqono mawduuca aan rabay inaan videogan ka hadlo insha Allah wuxuu ku saabsan yahay yani sidee oo u dadaali kartaa inuu ducadaada Ilaahay Azza wa Jal inuu ajiibo. because waxaa lagu leeyahay oo ramadaan baa lagu jiraa hala duceysto, ducada hala badiyo. laakiin ducada waxay leedahay ahdaab, waxay leedahay asaaliib, waxayna leedahay asraar bay leedahay. aadaabta waxaan ka wadaa yani sida fiqiga hadda aragno aadaab ducaaga iyo yani sida culimadeena iyo diinta sheegayso aadaab ducaa iyo waxyaalahaas iyo. laakiin waxaa jirta asraar oo Ilaahay Azza wa Jal oo ducadaada isla markiiba ku ajiibayo. waxaa jirta waxyaalo haddaa samaysid subxaanallah oo arkaysid ducadaada inuu isla markiiba Ilaahay ajiibay. maxaa waay waxyaalahaas? waxaan rabaa inaan igala wadaago 5 waxaan u bixiyay خماسية الدعاء المستجاب. خماسية الدعاء المستجاب يعني وشنطة تير وهدار بتد إنه الدعاء هذا إن شاء الله بإذن الله تعالى النية إخلاص إلهي عز وجل ألاقي ماتد بإذن المولى الأحد، لأنه إلهي عز وجل يعني بإذن الله المولى الأحد وكو أجيبا يعني وحنو كو أجيبا يصدق أقول أخصب بدن. and the reason why kugu ajiiba sida ugu dhaqso badan because asagaaba Ilaahay Azza wa Jal isku bixiyay magacyadiisa kamid ah al-qariib, kan ku dhow oo wax kastaba si dhow ku siinaya, al-mujiib kan uu ku dhageysanayo oo ku ajiibaya ducooyinkiisa. marka Ilaahay Azza wa Jal asagaaba isku bixiyay al-qariib al-mujiib. marka laakiin waxaa jirta dad badan oo isweydiinaya maanta dhan waa duceysanay, sanawaad dhan baa duceysanay, sanooyin badan baa duceysanay, waxyaalo badan baa Ilaahay ka duceystay laakiin ma arko waxyaalahaas. maxaa keenaya? because yani waxaan u baahanahay sir min asraarta adciyada oo inay Ilaahay Azza wa Jal ku ajiibo inaan isla fahano. waliba 5 sir aan raba inaan la waraago. waxaan sameyn doonaa insha Allah sidii wax si fudud ah insha Allah inagu soo gudbiyo podcastiga yani maqal kaliya oo ku saabsan yani sir kasta ama qodob kasta ama yani qodob kasta waxaan u qabsanaya xabad u qabsanaya oo ka hadlayo fadliga qodobkaas ama fadliga yani asluubkaas ama sirtaas oo ducada ku saabsan iyo
sheekooyin badan oo kusoo aruurtay dad badan markii yacni dikrigaas ama sidaas habkaas ay sameeyeen oo ilaahay casa wajal uu u astajiibay ducooyinkooda. taasna waxaa rabaa inaan igu soo gudbiyo because waxaan rabaa yaqiinkiina inuu sii ziyaado, kalsoonida iyo yaqiinta ilaahay ku qabtiin inuu ducadiina insha allah tacaala oo sida ugu dhaqso badan u ajiibi doono. okay, marka haddaan yani maantana videogan wuxuu ku saabsan yahay si guud ahaan baa u kormarayaa shantaas duco iyo waxya kala raba inaan la wadaago oo ku saabsan sidee habka oo yani oo ramadaanka uga faa'iideysan kartaa sida goolyaashaada inaad u gaartid ahdaaftaada sanadka inaad gaartid. tan u horeysa oo shantii khumaasiyata duca ku saabsan number 1 waxaa ah dikrigan oo ilaahay casa wajal oo sheegay oo ah كنز من كنوز الجنة بو النبي عليه الصلاة والسلام. وكنز دن وكنوز الجنة كم التهاي أضو يعني الجنة انت دحك الشيء وذهب كذي يلول كذي الدايمن كذي سوق قصتي أما سوق قادتي بكم التهاي لم التهاي مركا كنز كاس من كنوز الجنة محاواية وذكرك أو كلين أو التقانين لا حول ولا قوة إلا بالله. سبحان الله سبحان الله سبحان الله. يعني ضد بدن مركي لا حول ولا قوة إلا بالله الذكر جاس بديين وحيال بدن ونلشوا إسلهاي مرنا ما دعي دونتو مرنا ما سرتو بدونتو ومعجزة من المعجزات هدي يعني وحسن شعل هدو إلهي إيه كانوا مركي ذكر جاس بديين لا حول ولا قوة إلا بالله إلهي هو أجيب بإذن الله تعالى إلهي هو أجيب وحياليه شعلايين إلهي وسيه. إن شاء الله sheekooyin ku saabsanna taas waa ka hadli doonaa sidii because waxa u baahanaa yaqiinkeen inuu sii ziyaado. waqti waxaan ku jirnaa oo dadkii ummadii oo dhan waa niyad jabsanahay, xitaa adoo ducaynaysid ma hubtid inay ducadaada ilaahay ku ajiibi doono iyo inuu ka aqbali doono. marka sidaa yaqiinkeen u badino inaa sheekooyinkaas oo yani uplifting oo motivating ah oo yani insha Allah nagu dhiirigelinaysa inaan adkaartaas akhrino inaan ka sheekeyno waa biidni illaahi tacaala. tan labaad marka sirka ugu horeysa waxaan dhahnay waa la xawla wala quwwata illa billah ina badisid. sirta labaad ina istighfaarta badisid. يعني استغفارta maxay ka caawinaysaa? استغفارta waxaan dhahaa yani waa sida waa adoo dhaqaysid qalbigaada, lianno qalbigaada markuu saliim yahay ilaahay casa wajal ilaahay markastan waxa kasta jecesha ku siinaya wax kastana ilaahay ku fududeynaya. laakiin maxaa qalbigeena wasakheynaya? waa dunuubta macaasida hari hameenka galayno dambiyaashan galayno. marka dambiyaasas sida u dhaqi karnaa yani waxaan dhahaa bleachka oo qalbiga yani bleach oo spiritual bleachka yani waa wuu ka dhaqaya oo ku cadeynaya qalbigaada marka badisid istighfaarta. istighfaar oo siiqooyin badan ay leedahay istighfaarta. insha Allah marka podcastiga ama maqalka aan ka hadli doono istighfaarta si fiican oo si faahfaahin doona taas. istighfaarta waa sidoo nabigeena nuux alayhi salaam oo sheegay يعني فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. يعني سبحان الله يعني إلهي عز وجل مركا استغفارت بديسيد ربك وجسود آية رب وحن كودا ما أهبيه كليا خيراته لن بركاته لن ولاجه لن بكوجسود آية. إلهي وحو كسينايا أموال، إلهي وحو كسينايا أولاد، wax kasta aad jecesha ilaahay wuu kuu badinayaa. fadliga istighfaarta iyo qisado badan dad badan markii istighfaarta noloshooda ay badiyeen oo yani bil number badan ee dhaheen oo si ikhlaas si niyo u dhaheena noloshooda waxyaalo badan oo ka bedelmay. taasna insha Allah sheekooyinkaas waan la soo wadaagi doonaa. marka tan ugu horeeya waxaan dhahnay sirta ugu horeysa waa la xawla wala quwwata illa billah in la badiyo. tan labaad istighfaarta in la badiyo. tan saddexaad waa saliga nabiga calayhi alf salatu wasalaam. يعني سبحان الله سبحان الله سبحان الله. نبيك صلي نبيك يعني ومعجزات من معجزات إجابة الدعاء. هدارة الدعاء هذا إنه إلهي عز وجل أجيبه. والنبيك أمانت هرت أمانت إلهي باك بلابس هاي حمد جيسة
nabiga calayhi salaatu wasalaam ammaantiisa iyo salliga nabiga badinaysa, ducadaada sheegaysa, hadhowna waxaa ku khitaamaysaa salliga nabiga. yacni kama soo hadda videogan keliya ma kusoo tirin karo fadliga ee leedahay salliga nabiga calayhi salaatu wasalaam. marka haddaa salliga nabiga badisid weliba siiqada oo yani siduu nabiga calayhi salaatu wasalaam sheegay, siiqada oo ugu fadli badan oo ah asalaatu alibrahimiya. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. يعني سبحان الله سبحان الله، معجزات معجزات. يعني هداربتد إلهي عز وجل إنه وحيالة بضن وقلبي هذا كتشرة، نيد هذا كتشرة، وإستهيس إلهي إنه كو حقيقي. حتى وحيالك والله سبحان الله وحياله حتشرت نيد كوهينين ولكن أتعشى إنه إلهي كسيو، لكن مركز يعني دعوينك هذا كدرين مركز صلاة النبي عليه الصلاة والسلام بدي سيدنا إلهي واحد شعلاد إيه واحد كفكريس إيه واحد كلاد كفكرين حتى إلهي وكسين دونا. markalena insha allah maqal kalaan ka samayn doonaa yani fadliga salaata nabiga iyo sheekooyin badan, dad badan oo salaata nabiga markay badiyeen sidoo ilaahay casa wajal noloshooda u bedelay oo yani waxyaalo badan oo mustaxiil ahaa oo lagama filnaan ahaa sidoo ilaahay u siiyay. marka saddexday waxaan dhahnay hayaa sheegi doona laa xawla walaa quwwata illaa billah, istighfaarta iyo salliga nabiga. tan afaraad waa suuratul baqara. سورة البقرة يعني سيدو النبي عليه الصلاة والسلام حديث كيسا بمعنى أقصى أروري أخذها بركة وتركها حسرة. بركة محل قوضاء، بركة وحل قوضاء يعني إلهي نحريستيسا مركزتك وقصو الدقيسا، حسلوني باهليسا، أرزاق والله سبحان الله. يعني أرزاق من حيث تحتسبين ومن حيث لا تحتسبين، ميلا كفي ليسد يميل أتكفي لينين بإلهي أرزاق وحكاسينا. رزقي عكلينا معها، رزقي وحوى وناق ونحريس ورحمد وفضيد وحي إلهي عز وجل، وحي وحكستب إلهي كوفو دينايو تشعالكي وإلهي عز وجل وقلوبت ابن آدم كوكو أبو رايو. مركا وبركة بركة أذيك بركة كوتاي قريق هذه بركة أتاي نولش هذه بركة أتاي. يعني سبحان الله لقى شيكين كرو سورة البقرة يفضل جدا، لكن إن شاء الله سان شيك داي فيديو قارن أسمين دونا تاسنا. تنشنعد وقيام الليل. شرف سيدو معناه يعني بمعنى حديث النبي عليه الصلاة والسلام شرف المؤمن بقيام الليل، يعني معناه أساس حديث كان داخلت وشيء شرف المؤمن قيام الليل. يعني هدار ربتد إلهي إنه عزت كسيو، إنه وناك كسيو، إنه شرف الدنيا آخرة بقف أو سبحان الله كراميسن أو مهم أو يعني نيديس وناقيسة إن شاء الله مقضي إنه إلهي كاديغو قيام الليل إنا تكتد واي، لأنه الثلث الأخير وثلثكو إلهي عز وجل بطريقته سيدو إلهي عز وجل أساقو أجيهي بوكسو دقا وسو دقايا مركز دعوين كستب إلهو كأجيبايا أساقا بدهايا يا رب إنو الدعيستو الدعاء دي سو أجيبا يا رب إنو الدن بدافو ودن بداف سيا. مركز قيام الليل وحيا الله وبضنا هدا الدعاء دا يعني وحال الدعاء في الثلث الأخير سهام يعني واسده فلار أضو عرك ودري واي. مركا وحيالها بدنا هدارتد دعاء إنه إلهي عز وجل سيد أخصائه إنه كوه أجيبه واحد كده داشا إناد ثلث الأخير بالليل إنا قيام الليل إنا لإماتد بإذن الله تعالى. والله سبحان الله يعني فائدوين كانوا حاكمت دعاء إن إلهي كوه أجيبه يا أذيقنا يعني وحا هلسة راحة نفسية، طمأنينة هلسة، واحد هلسة حسلوني بدن فرحد يعني ما وهبتد ماشي كإماتي وحي تاي متقاند، لكن سبحان الله وحا أركزة مركزت إنه قلبي قادة دقيني هاي مركزت إنا فرحد كتشرتد، مركزت إنا حسلوني وناك كست إنا كتشرتد أركزة مركا نقطة دادك وكداوي ما قيام الليل كا. مركا وعشان تاس وحان دهنا ولا حول ولا قوة إلا بالله. إنا بديسيد استغفارت إنا بديسيد صلي النبي عليه الصلاة والسلام إنا بديسيد يو
qiyaamu leylka inaan badino iyo suuratulbaqara. suuratulbaqara nabiga calayhi salaatu wasalaam waxaa kasoo aruuray inay 3 maalmoodba la akhriyo, laakiin haddii yacni duruuftaada ku ismaxayso oo aad awoodid inaad akhrisid maalin kaste taasaaba kasii fadli badan. laakiin siduu nabiga calayhi salaatu wasalaam sunnada haddaad rabtid inaad ku socotid 3 maalmoodba mar, laakiin haddaad rabtid inaa yacni iimaankaada inuu sii xoogtamo oo yacni qawi sii noqdo oo ilaahay casa wajal usii dhawaatid xarigga ilaahay casa wajal aad dareentid inaa ilaahay u dhowdahay, waxaa aad iyo aad u macaan inaa maalin kasta akhrisid suuratulbaqara. taasi waa taas waxaan ka hadlay 5 asraar oo ku saabsaneed sidee baa rabtaa ilaahay casa wajal sida ugu dhaqso badan inuu ducadaada u astajiibo. taasi waa taas insha Allah waana sii faahfaahin doonaa saan sheegay ayadoo maqal keliya ah. tan labaad aan raba inaan ka hadlo ahdaaftaada inaa ahdaaf sanad kastaba inaa ahdaaf leedahay, inaad mar kastaba yacni aad ku istak ahaanin ama aad joogin keliya meesha aad shalay joogtay, meesha shalay ama last year aad joogtay ama sanadkii hore meesha aad joogtay inaa meeshaada keliya inaad tanaagtid. waxaa ka fiican 100% inaad lahaatid growth mindset, yacni inaa horumar gaartid. sanadkii hore inaa sanadkan ka duwan tahay la rabaa, sanadkan waxyaalo cusub inuu noloshaada kusoo ziyaada, sanadka soo socdana inay ayadana waxyaalo kaloo cusub inay noloshaada kusoo ziyaada. sidee bay taas u samayn kartaa markaa ahdaaf lahaatid? because hadaf haddaa lahayn yacni sideed baa guul u gaari kartaa noloshaada? ahdaafta waxay kaa caawinaysaa inaa waxyaalaha targetska leedahay, dreamska leedahay, waxyaalaha aad jecesha hanaanka leedahay, waxyaalaha aad rabtid inaa gaartid adduunkan, inaa marka hadaf leedahay. hadafku waa adoo destination camal gaaray. waxaana ugu cajiibsan oo subxaanallah yani can tajruba aniga hadlaya, anaa laftirkaygaan taraangareeyay, marka ahdaaftaada sanadkii yani ahdaafta sanadka markaa qortid ramadaanka dhexdiisa, allahu akbar, markaa ramadaanka dhexdiisa aad qortid يعني رمضان كان إلى رمضان كسو صعدة وسند بإذن الله تعالى وحان ربا كو لبا صدح أفرشن إنا انتاسو هدف قارو يعني سبحان الله ولبا يعني ما دام شهر مبارك يهي شهر أو ليلة القدر كتشرته وأقدارت إلهي عز وجل لا يرد القدر إلا الدعاء يعني سيدو النبي عليه الصلاة والسلام شيء يعني مرمر قدرت واحد شرت أقدار أو معلقة أو إلهي عز وجل أو بدلي كرم مركا الدعاء ستد والدعاء استرتد وإلهي عز وجل قدر ياشاس وبدلي كرم بإذن الله تعالى مركا هدا أهداف هذا السمي ستد أو ولي بكو أدي ست مركي رمضان كجرنو يعني إن شاء الله وحي أبضنتها إنا أهداف تسكارتد waxyaalaha oo yani si practical ah aan rabaa inaan igu sheego yani waxa soo qaadanaysaa warqad ama buug baad soo qaadanaysaa waxaana rabaa laba wax inaad ku dhigtid buugaas ama warqadaas waxa ugu horeeya page ugu horeeya laba page baad ka dhigaysaa page ugu horeeya waxaad ka dhigaysaa adiga naftaada waxyaalaha aad jeceshahay inuu ilaahay dabeecadaada ka bedelo يعني يو نيجاتيف تريتس كا وحيالها أو يعني أستعشى إن نفتها إلهي كبدله يعني أم هدا قيلة بدن تهاي هدا حناق بدن تهاي هدا قف أو إسكا سان علوس أو وح كستبا ما أنتو البروكاستينيشن كتشرت أو لاست مينت وحي هاد إني قبضته بالكهر لو بالكهر السنة كهر مركي وقد بس مركو ديدلاين كوسو جارا ما أنتو دون أردي سيدا ستريس إيو أدو دون فرستريشن أو كابو سمايا بروكاستينيشن الله يعني إنا وحي أو أون تايم إنا تسمينين أما وحي أدو سميني سيد إنا يعني أس كسل جارين يعني وحي أو أسوق نحمر أما قبيعة أما أو يعني أذو كسل جارين وحي إنا وحي كتكتد أما كان يتشبتد مركا وحيالها صورن هدي يعني طبيعة هذا كم يتحي وتقريسا هدا تعيش إنا قيلة إسكت دافتد هدا تعيش إنا حناق إسكت دافتد هدا تعيش بروكانستينيشن كأما وحيالها مركز الدب ودي سيدا هدو أردي سيد لاست مينت كا هذه كتشرتها وحيالك استأسدي سيد الله لا إله يا ربي الرحمن طبيعة داس أو عن شعلين بالله إله يقبل هدا ربتد إنا هدي وتقرنيسا
waad qoranaysaa mid kastaba agteedana ducada ku saabsan inuu ilaahay casa wajal dabeecadaas kaa bedelo. dabeecadaasaan leeyahay inuu dabeecadaas ilaahay kaa bedelo. the reason why aan kuu dhahay page ugu horeeya inaad ka dhigtid waxyaalaha aad rabtid naftaada ilaahay inuu kaa bedelo yani shakhsiyadaada, lianu ilaahay casa wajal siduu sheegay ina allaha laa yugayiru maa biqowmin xataa yugayiruu maa bianfusihim. haddaa adiga naftaada wax ka bedelin, runta naftaada u sheegin, maantoo dhan aad denial, been naftaada u sheegin sida ku jirtid, weligaa situationkaada iyo yani duruuftaada wax ka bedelmaayo ma laha. marka sidee ku bilaabi karnaa taas? bal aniga gudahayga inaan fiiriyo, aniga inaan toosh isku qabto, isfiiriyo ama muraayad isku soo jeesto, maxaa waay waxyaalaha aan jeclahay, aan ogahayna inaa yani aan jecla inuu ilaahay iga bedelo ama inaan ku dadaalo aan naftirkayga inaan bedelo. marka page ugu horeysa waxyaalaha jeceshahay oo naftaada ku saabsan inaad bedeshid, iyo ducooyinka yani ilaahayo rabbi raxmaano, mid oo dhaqso waxeeda u samaysata, mid oo markastaba halfway wixii intii ku istaagta oo yani ka tagta ilaahayo ha iga dhigin, ilaa mid markastaba guushi ee rabta inay gaarto, yani adiga bisiiqatiki yani sidaa jeceshay, sidaa adiga oo kuu fudud markasta xasuusan kartid inaa duco agteeda ku dhigtid. taas waa pageka ugu horeeyaan dhahnay. waxaa kusoo haray pagekii labaad. pageka labaad waxaa ku qoraysaa targetyada aad rabtid next year inaad gaartid, sanadka soo socda. hadda ramadaankaana ku jirno, ramadaanka soo socda maxaa rabtaa inaad gaartid, oo by the time ramadaanka soo socda aad gaarno insha allah tacaala waxyaalahaas adoo already sameeyey waad qoranaysaa ayadana 1 2 3 4 5 6. markaas markaa qoratid targetyadaas mid kastana falaar yar baa ka bixinaysaa, aad ku daraysid duco oo ilaahay casa wajal inuu kuu fududeeyo. for example waxaa rabaa inaa driving license inaa gaariga barto, for example yani as example ka dhigaya. markaas markaa qortid targetkayga taasaa kamid ah, number 1 kaasaa kamid ah. okay, duco yar, ilaahu casa wajal ii fududeey inaa licenkayga qaato ama inaa imtixaanadaas ku baaso. saasa qoranaysa yani targetkii iyo duco, targetkii iyo duco, targetkii iyo duco. yani sababtaan ugu daray ducooyinka waxaa kamid ah because saan sheegnay markii horeba waxaan ku jirnaa waqti oo yani mubaarak ah, shahr ramadaana ku jirnaa. markastana haddaa intaa targetkaadii ducadaadii ku duceysatid dee insha allah ilaahay wuu kuu fududeynaya inaa يعني wixii aad rabtay inuu ramadaanka soo socdo, by the time ramadaanka soo socdo ilaahay casa wajal asagoo ku caawino oo targetkaas aad rabtay inaad gaartid. yani subxaan allah, wallahi yani wallahi walaalahay qaaliga ah, can tajruba anigaa sheegaya taas. sidaa haddan igu sheegaya maqlay, waxaa maqlay markii ahayd 2020 waxaan ka maqlay muxaadarad saasaan ka maqlay inaad targetskaada oo sanadkii ramadaanka dhexdiisa inaad ku samaysid. subxaan allah, markaa taas sameeyeyna waxaan arkay sanadka ugu horeeyey 4 duco mase adi dhowr yar 3 ama 4 ahaayeen. waxaa arkay inuu ilaahay casa wajal waxyaalihii inuu ii fududeeyey. targetyadan lahaa 4tii waxaan lahaa ilaahay casa wajal ii fududeeyey. and then I was like wow, meeshan yani kheer baaba ilaahay kaaga furay. and then 2021kii 11 targets aan samaystay. ilaahay casa wajal kulligoodna ilaahay wuu ii xaqiiqay. kuwa qaarkood ii xaqiiqin way jirtaa, laakiin I'm feeling yani waxaan dareemaya inuu ilaahay preparation ii sameynayo, yani inuu ilaahay yani iisii dhisaayo oo jidkii iisii yani abuuraayo. xitaa waxyaalahaas aan rabay inuu ilaahay isiiyo oo laakiin ramadaankii kale igu imaado weli isiinin, laakiin waxaan dareensanaha inaan jidkii oo waxaas aad targetkaas ku gaari lahaa inaan ku dhex jiro. subxaan allah, marka targetyadaada insha allah ku aadi inaad qortid ramadaanka dhexdiisa insha allah tacaala. intaasoo kusoo koobaya biidn illahi tacaala. markii hore waxaan ka hadalnay asraarta 5 asraar oo ducooyinka khumaasiyata ducaa oo bixinay. talabaadna si practical way oo ah oo yani ahdaaftaada sanadkiisa u gaari kartid. intaasoo kusoo arooriyay insha allah. mar kalena waa soo qori doonaa ama soo dhigi doonaa videoyo ama maqalyo kaliya, podcast kaliya oo ku saabsan mawaadiic kala duwan biidn illahi tacaala. intaasaan nigaa tagay. subxaanaka allahuma bixamdika, nashhadu an laa ilaaha ilaa ant, nastaghfiruka wanatuubu ilayk. wassalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatuh.